الله الرحمن الرحيم waxaan si aan baqaadaya casharkii aynu ku wada balamnay ee ahaa taxanihii inoo ahaa qaybtii koowaad aynu qaadanay caawa waxaan si aan baqaadaya qaybtii labaad oo ciwaankiisu ah don't inflict u geysan inflict pain dhaawac on my heart qalbigayga waa part 2 qaybtii labaad weeyaan the next day maalinta xigtay he waa wiilkii weeyaan markaa kamis ayaa wuxuu imaanayaa in front horteeda of her ayadu gabadhi weyn of her that his eyes isagoo indhihiisa are in tears ilmo ku sugan ilmayn markaasi ilmo fara badan indhihiisa ku sugan weeyaan ilmo ku sugan indhihiisa boy wiilku wuxuu oranaya don't you see miyaadan arkaynin gabaryahe don't you see that my eyes inay indhahayga are in tears ilmaynayaan and I can hardly aniga ma karo restrain inaan iska xakameeyo restrain markaa xakameeyo to retake back inaan dib markaasi u celiyo my tears ilmahayga I can hardly anigu restrain ma xakameyn karayo restrain waa xakameyn to retake back inaan markaa dib u ceshto my tears ilmahayga ilinteeda macna my tears waa ilin weeyaan gaalgoor maxay dhaysaa you boy william I told you waan kuu sheegay anigu told waan kuu sheegay you adigu that I am inan anigu presently waqti xaadirkani seeking aan raadinayo a man nin who ninkaasoo is as old u weyn as I am anigoo kale someone qof who qofkaasoo prevents me from iga ilaaliya someone qof who kaasoo prevents me from iga ilaaliya prevent waa ka ilaalin ama ka dhoorid prevents me from iga ilaaliya ill treat laqdabo and deals igula dhaqma with me anigu lavishly si lilaahi ah daacad ah I would rather say waxaan ku oran lahaa you adigu align me your back dusha isoo aadi your back dusha isoo aadi boy muxuu oranaya please fadlan I beg you waan ku baryayaa waan ku tuugayaa I beg you waan ku tuugayaa you see waad arkaysaa your love jacaylkaaga overwhelmed iga tambadiyey me anigu so let's get alone aan isfahano each other labadeena don't you see miyaadan arkaynin that inay my eyes indhahayga are shading ay sii deynayaan tears ilmo so why don't you look at me maxaad igu soo eegi la'dahay look at me igu soo eegi la'dahay with a merciful naxariis leh il naxariis leh merciful naxariis ayna waa il weeyaan you see waad arkaysaa waxa I am anigu going through aan ku suganahay what I am going through waxaan ku suganahay I mean waxaan ula jeedaa what I took the fall in you maxaan kaa galabsaday I took the fall in you aan kaa galabsaday when you are mocking markaad igu jeejeesaysid markaad igu yaaqsanaysid ama jees mocking at me anigu when you are mocking markaad igu jeejeesaysid at me anigu like this sidani gaal maxay leeyahay gabadhu waxay dhahaysaa please fadlan you should stop waa inaad joojisaa you adigu should waxaa kula gudboonaan stop inaad joojiso lamentation calaacal waaye lamentation calaacal from me anigu don't you know miyaadan ogeyn that there is a lot of fish in the sea inay gabdha iga badan yihiin aan laga wadaa macnaa markaan waa war oo maldaha weeyaan oo xagga Englishka ayaga isticmaalaan there is a lot of fish malay fara badan ayaa ku jiro in the sea bado oo laga wado there is a lot of fish in the sea gabdha iga badan waaye so why don't you seek maxaad u raadsan la'dahay those girls gabdhahaasi boy wiilku muxuu oranayaa real you are adigu
better waxaa ka fiican tahay you are adigu better waxaad ka fiican tahay than thousands kumanaan for me aniga xaggayga because maxaa yeelay you are adiga waxaa tahay faithful lama dhaafaan faithful qofan laga tegi karin lama dhaafaan waa faithful girl gabar lama dhaafaan faithful girl and you are adigu waxaa tahay boxom jir boxom waxaa la qof jir leh waa boxom jaabi haddana kuusan and small wasted iyo dhexyare small wasted waa dhexyare dhex dhuuban small wasted waa dhex dhuuban small wasted dhex dhuuban weeyaan so in lieu of halkii missing you aan ku waayi lahaa missing you aan ku seegi lahaa it is better waxaa ii dhaanto for me anigu to knife myself inaan mindi isgeliyo ma naftida mindi gelinaya oo kale weeyaan to knife inaan markaasi naftida mindi aan geliyo knife myself galgol bixis how can I be sidee bana anigu sidee can I be anigu devoted ugu go'a devoted markaas ugu soo go'a usoo go'id waa devoted u go'id devoted markaa u go'a to someone qof who kaasoo was born of ka dhashay poor family qoys oo faqri ah ama faqiir ah poor weeyaan poor family qoys faqri ah poor family I believe aniga waxaan aaminsanahay bay oranay gabadhii my parents waalidiinteeda will not allow me miya ogolaan doonaan will not allow me ima ogolaan doonaan to be inay markaa to be ina anigu markaas spouse aan lamaana la naqdo lamaana inaan la naqdo with you adigu to be frank haddii aan kaga hadla caloosheeda wax ku jiro with you adigu I am anigu engaged doonan to waxaan u doonanahay someone qof and that person qofkaasi is printed wuxuu ku daawacan yahay in my heart qalbigayga so don't detain yourself ha islugoonin but wiilku muxuu really I can't aniga extract kaama saari karayo extract waa kasaarid extract kaama saari karayo you adigu from my heart qalbigayga furthermore waxaa sii dheer I anigu sleep waxaan hurdaa chanting anigu ku dhawaaqayo you name magacaaga and wake up waxaan soo toosaa chanting anigu ku dhawaaqayo your name magacaaga even xitaa I have anigu written waxaan ku qoray an abiding love calaamad jacayl ah an abiding waa calaamad love jacayl ah on part qayb ka mid ah on part of my arm gacanteeda you should now waa inaa ogaataa that no sooner later maran dheereen aan dhaweyn no sooner later maran dheerayn I will be aniga out waxaan ka bixi doonaa I will be buu oranaya wiilkii out of waxaan ka bixi doonaa this perfect faqiirnimadani if haddii I anigu geeniyo aan ku helo if I geeniyo haddii aan ku helo so relent iisoo dibic for me anigu gaalgori maxay dhehaysaa you are better inda adiga you are adiga better inda waxaa taa maqooste you are adiga waxaa tahay better adhisaa better inda adiga waxaa taa maqooste you are adiga waxaa tahay better inda macangeg maqooste better inda so it's better for you waxaa kuu fiican to despair inaad ka quusato of me aniga xaggii inaad ka quusato before ka hor I anigu abandon intaan kaa tegin abandon waa ka tagid intaan kaaga tegin you adigu to a neglect cidla ah place meel a neglected place meel cidla ah boy muxuu oran if you abandon me haddii aa iga tagto if haddii you adigu gabaryahay abandon me iga tagtid to a neglected place meel cidla ah I will anigu crucify waa isdaldalayaa crucify waa isdaldal oo daldalid oo sida alwaax isku daldalaa alwaax crucify waa isdaldalaya crucify I will anigu crucify waa isdaldalayaa alwaax baan isku daldalayaa myself nafsadeeda gabadha maxay actually
it applies to you aday ku khusaysaa it applies to you aday ku khusaysaa whether haddii you adigu crucify aad markaa isdaldashid crucify isdaldashid or not iyo haddii kale don't windy back ha iga daban calaynin don't windy back with me ha iga daban calaynin don't windy back with me ha iga daban calaynin is it force xoog miya is it force maxoog ba is it force maxoog ba I hardly need you aniga kuma baahni I hardly need you aniga kuma baahni boy muxuu oranayaa I will anigu retain waan ku soo laabanayaa I will retain you waan ku soo laabanayaa when you Molliver markaad degsatid when marka ama goorta you adigu Molliver aad degsatid when you Molliver markaad degsato your mind maskaxdaada when you Molliver markaad degsato your mind maskaxdaada because maxaa yeelay your mind maskaxdaada is not comfortable ma xasilna your mind maskaxdaada is not comfortable ma xasilna comfortable it's all my lesson for tonight see you bye inshallah next and the third part inshallah bye for now